jiray sharci oo shirkadeed Soomaaliya haddaan wax yar ka idhaahdo Soomaaliya xilliyadii ay soo martay oo ilaa 5 aan ku sheegi karo maamul ahaan mid waa wixii ka horeeyay gumaystaha xilligii uu dalkeena soo galay wixii ka horeeyay dabcan Soomaaliya ma lahayn maamul guud oo dalka oo dhan xukuma magaalooyin iyo deegaano ay madax ka yihiin dad u badan dhaqan ayaa jiri jiray waxa ku xigay xilligii gumaystayaashu dalkeena soo galeen oo jamhuuriyadda Soomaaliya dalka la dhaho laba qaybood uu ahaa qaybta gobolada waqooyi oo dawladda Ingiriisku gumaysanaysay waxa laga dhaqmi jiray sharci la dhaho common law oo Ingiriisku leeyahay dhinaca koonfurta ee Talyaanigana waxa laga dhaqmi jiray sharci la dhaho civil code la dhaho wuxuu kaloo lahaa Talyaanigu commercial code sharci la dhaho ayuu lahaa oo la sameeyay 1865 ayuu lahaa Soomaaliya markaa wixii ka horeeyay 1993 commercial code ka Talyaaniga ayaa lagu dhaqmi jiray shirkadu ku dhaqmi jiray oo sharci aad u kooban ahaa ayaa lagu dhaqmi jiray 1973 ayay Soomaaliya samaysatay sharci la dhaho xeerka madaniga ah ee Soomaaliya ayay samaysay kaasoo 3 qodob oo kamid ah shirkadaha ka hadlayay qodobka 502 503 504 ayaa shirkadaha ka hadlayay laakiin si aad u kooban oo hadda xilligan casriga ah la qabsan karin ayay uga hadlayeen xilliga afraad xilligii aynu dagaalka sokeeye ku jirnay weeye wax sharci ma aynu lahayn waxaan ku dhaqmaynay sharciga kala adkaashaha jagalowga ku dhaqmaynay in banigu ka adag yahay wixii uu doona sameeyo waxa ku xigay xilligan dawladaha ku meel gaarka dibta qarankeena aan u sameeynayno hadda aan ku jirno oo intii la doono marba la soo maray 2000 ka soo bilowday marba dawladdu awoodeeda inay gaarsiisantaa wali meelaha qaar kood baan shuruucdo dhami aanay ka wada dhaqan gelin marka taariikhiyan haddaan dib ugu noqdo mawduuca Soomaaliya male sharci shirkadaha lagu maamulo oo buuxa oo la jaan qaadi kara adduunka male samaynta sharcigan oo runtii maskax badan la geliyay waxa samayntiisa bilowday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyadoo la kaashanaysa bangiga adduunka oo qayb ahaan naga caawiyay in qarashka ku baxaya la helo Soomaaliya wasaaraddu markii ay wixii ay qori karaysay qortay waxa lagu wareejiyay company Kenyana iyo Ingiriis oo la dhaho Mahmoud and Gateway Advocates baa lagu wareejiyay oo iyaguna international standard ka dhigay oo nagala qayb qaatay inay hagaajiyaan sharciga markaas kadib haddana waxaan u dhiibnay oo proofreading ku sameeyay sharci yaqaan Soomaaliyeed ayaan u dhiibnay markay dhameeyeen wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ayaan ku wareejinay si iyaduna u hubiso inuu waafaqsan yahay shuruucda iyo xeerarka Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxa la geeyay golaha wasiirada oo iyaguna fikirkooda ku daray marka intaas uu soo maray sharci maskax badan la geliyay weeye waxa inta dheer markuu preparation ku jiray waxa la isugu yeeray dhowr jeer oo lala tashaday wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha maamul goboleedyada oo iyaguna maskaxdooda ku daray iyo ganacsatada waaweyn ee Soomaaliyeed intaas oo jeer workshop loo qabtay oo iyaguna contribution kooda ku daray faa'iidooyinka sharciga lama qiyaasi karayo sharcigu wuxuu hagaajinayaa maamulka iyo diiwaangelinta shirkadaha wuxuu ilaalinayaa xuquuqda mulkiilayaasha maalgashadayaasha macaamiisha iyo bi'ada wuxuu dhiirigelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo soo jiidashada maalqabeennada shisheeye ayuu dhiirigelinayaa baahida loo qabo aad iyo aad bay u badan tahay haddayna sharcigan lahayn ganacsigeenu nidaam ma yeelanayo dadka shirkoobay waxay ku shirkoobaan ma garanayaan haddii qofkii lacagtii iyo wixii maalgashigii la sameeyay cid ilaalinaysa male laakiin haddii sharcigan la asixiyo dawladda ilaalinaysa maalgashadayaashu ma imaanayaan oo ma aamini karaan systemka Soomaaliya haddaan la ansixin dadweynaha iyo ganacsatada Soomaaliya hantidoodu khatar bay ku jirtaa intii hadda sheegay oo ma jirto dawlad la socota shirkaduhu inay khasaarayaan iyo inay faa'iidayaan
dhaqaalaha dalku ma kabmayo, shaqo abuurna lama helayo. markaa sharcigan sharci aad iyo aad muhiim u ah weeye. wuxuu ka kooban yahay 14 cutub iyo 299 qodob. mudanayaal, xildhibaanada sharafta iyo guddoonka, wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba maadaama golaha wasiirada soo maray, waxaanu baarlamaanka Soomaaliya sharafta ka codsanaynaa inay sharcigan oo ku xidhan maalgashigii baryahan waxaan ku dadaalayna dawladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha ayaa u ah. kobcin dhaqaale lama kobcin karo haddaan kambaniyadii iyo maalgashigii irid loo furin. irid buu furayaa. marka waxaan codsanaynaa wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba xildhibaanada sharafta leh inay sharcigan sida ugu dhaqsaha badan noo ansixiyaan. aniga iyo tiim aqoon-yahanaabaa jooga oo sharcigan dadkii wax ka diyaariya ah. wixii su'aalaha aad qabtaanna waa idinka jawaabayna. waa mahadsantihiin.